السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaan daawadayaasha fiidiyogan waa rawda cilmi oo idiin soo duubeysa fiideo labaad. Waxaynu kaga hadli doonaa fiidiyogan qof kastoo cusub oo daawanaya markuu qofku soo galo sida uu accountkiisa u furanayo. Affiliate-ka qofka ganacsadaha maaha macmiilka waa qofka ganacsadaha. Marka trainingkan qofka waxaa loogu talagalay ganacsadaha in uu marka uu bilaabo accountkiisa sida loo isticmaalayo barto. Waxaad odhanaysaa markaa website-kaaga marka aad halkaa ku qortid ama linkiga qofkii kuu sameeyey uu kula wadaagay amaba adigaaba samaystay, waxaad odhanaysaa sign in. Halkaas ayaad ku dhufanaysaa, gacantu saaran tahay sign in. Sign in marka aad tidhaahdid waxaad gelinaysaa username-kaaga oo noqonaya website-kaaga magaciisa iyo password-kaagii aad samaysatay. Hadda account-kanaan gelayaa, login baan odhanayaa. Login markaan idhaahdo isla markaaba wuu ii log garaysmaya. Halkan waxaad ku arkaysaan account-ka aan ku jira waxa weeyaan test account. Qof kasta user ID buu leeyahay. User ID-giisa halkaas ayuu ka muuqanayaa. Marka aan doonayo in aan aado back office-kayga, laba meelood baan ka tegi karaa. Halkanna waan ka tegi karaa my back office affiliate, my affiliate back office cafwan, iyo halkan korka labadaba waad ku dhufsan kartaa. Marka halkaa korkaan ku dhufanayaa, deetana wuxuu ku geynayaa meeshii qofka ganacsadaha ah ee ganacsigooda loogu talagalay. Waa kan dashboardkii. Waxa geeskan ku yaala waxyaalahan macluumaadkan kala duwan. Halkan waxa weeyaan waa home, halka uu qofku ka eeganayo fiidiyoogii maaragtay welcome taa oo English qofka doonayay isagoo Soomaaliyana wuu yaalaa. Qofka maaragtay Soomaaliga markuu bilaabo wuu daawan karaa exactly fiidiyooga halkan oo Soomaali ah. Marka home-ka marka aad joogtid waxa ku xiga dashboardkii oo aad ka eeganaysa isagana waxyaalihii qofku halka uu marayay. Rankigaaga waxa uu yahay account-kani waa account testing ah oo aynu ku tijaabino ku barbarano. Marka waa unranked laakiin builder iyo executive waxaa tahay halkan aad ka arkaysaa. Labadaadii lugood bidixdii iyo midigtii halkan aad ka arkaysaa. Dhibcaha adiga ku yaala, dhibcaha gacmahaaga u yaala, binary-gaagii halkan aad ka arkaysaa waxa dhibca ku yaala. Qofka unilevel-ka uu leeyahay halkan uu ka arkaya wax kasta halkaas uga muuqanayaan. Home-ka marka aad joogto waxa kale oo dooran kartaa oo doonaysa maaragtay marka aad app-keeni waxaa soo dejisanayso kambanigeenu Instagram-kooda taabici kartaa. Instagram-kaasaad ku dhufanaysaa, click baad ku siinaysaa. Facebook-aad click ku siinaysaa, labadaba waad soo follow garanaysaa. YouTube-ka kambanigeenu waa kan. Telegram-kooda markaad ku dhufsatid waa kaa. Wuxuu ku odhanayaa join ayuu ku odhanayaa. almost 7,000 people ayaa ku jira. Anigu already ka mid baan ahay marka hadda view buu ii odhanayaa. Laakiin marka aad doonaysa inaad join garayso halkaasaad ama ka mid noqoto halkaasaad ku dhufanaysaa channelka si aad ula socoto waxyaali macluumaada. Qofka la soo degaya app-ka kambaniga wuxuu kala soo degayaa labadan meelood. Qofka haysta Apple phone wuxuu tegayaa App Store-ka oo Apple-ka. Qofkii iPhone haysta, qofka Samsung haystana wuxuu tegayaa halkan Galaxy. Marka aad ku dhufato linkigii ayuu toos kuu geynayaa, app-kiiba kuu soo dejinayaa, kadibna app-kaas telefoonkaaga ayaad ka isticmaalaysaa. Isticmaalkiisuna ma adka. Waxaa kaloo halkan ku jira qofka doonaya in English ku daawado traininadii oo dhan ama tababaradii qaybta Englishka ah, hadday tahay qaybta alaabada, hadday tahay qaybta maaragtay tababarada kale qofka ganacsigiisa u baahan inuu hormariyo. Halkan waxaad ka helaysaa wixii macluumaad kambaniga ku saabsan oo dhan, kambaniga newskiisa wixii soo kordha oo dhan ayaad ka helaysaa. Halka company news ay ku qoran tahay. Halkan waxaad ka helaysaa wixii upcoming event ah ama munaasabadaha soo socda wixii kambanigu qabanayo ee maaragtay event ah ama maaragtay lagu soo bandhigayo alaab iyo waxaas. Sanadkii dhowr jeer baa la qabta munaasabadaha noocan marka halkaasaad ka eeganaysaa. My account halkan waxaad ka eeganaysaa qofka doonaya maaragtay in uu gashto kaar ama lacagta waxa uu kula baxo oo kale payout option-ku tagayaa. Wadanka aad joogtay ku xiran tahay. Global e-wallet-kaaga ayaad samaysan kartaa haddaad doonaysid, or waxaad samaysan kartaa haddaad Maraykan joogtid halkan. Marka taasna waa account-kaaga. Account setting-giskaasi waa muhiim isaguna. Waa meesha qofka uu ka gashanayo shipping-kii waxaa gaar baynu u samayn doonaa haddii ilaahay qadar isaga video gaar aynu kaga hadli doonaa. Teamkaagu isaguna waxa weeyaan halka aad ka eeganayso dadka ku hoos yimaada halkanay ka soo baxayaan. Binary tree-gaaga dadku halkanay ka soo baxayaan. Hadda kani waa account testing ah oo cidimo hoos taalo. Dadka maaragtay halka aad enroll tree-gaaguna halkan uu ku jiraa. Holding tank-kaagaasi waa muhiim inaad baratid. Dadka marka aad keento halkanay kuu joogayaan, howl bay ku jirayaan ilaa adigu aad ka bixisidna kama baxayaan. Bidix iyo midig kolba ka aad doonayso ayaad dhigaysaa. Video gaar aynu ka samayn doonaa sida looga saaro holding tank-ka. Halkan haddaad doonayso inaad adeegato kala shop ayaad ku dhufanaysaa. Page cusub buu ku geynayaa isagana uu kuu soo furayo oo dib aad ugu laabanaysa meeshii. Reportiskani wuxuu ku saabsan yahay isagu qofku haddii maaragtay ranki ama darajo uu gaarayo halka uu ka eeganayo 1k iyo 5k iyo waxyaalaha aad tahay halkaas ayaad ka ogaanaysaa. Rank report isaga laftigiisa waxaad ka ogaanaysaa tiimkaaga cidda ee maaragtay darajooyin gaadhay. Halkan waxaad ka eegan kartaa commission calculator weeyaan. Account-kani wax lacag ama sameeyo waa account tijaabo ah. Halkaasuu qofka uga soo baxaya commission-ka uu sameynayo, darajada uu gaadhay iyo wax kasta iyo global bonus-ka waxa uu soo dhacay halkan ayuu ka eeganaya marka uu doonayo.
binary qualification report halkan uu qofka ka eeganaya tiimkiisa inta qof ee binary qualified u ah waxaas dhan halkan ayuu ku ogaanayaa reportiska hoostiisa ayay ku jirtaa insha allah binary karim haddaad u baahato supportka maaragtay marka aad la xiriirayso kamaniga oo kale tiimkeena xafiiskoodu waxa weeyaan xaruntooda weyni USA Las Vegas bay ku taalaa call centerkoodu waxay shaqeeyaan 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo Pacific Standard Time waqtiga Seattle oo Washington waqtigooda shaqeeyaan xafiiskeena adresskiisa waa kan Las Vegas adresskoodu waa kan emailka supportka qofka doonaya in la xiriiro waa kan xafiisyada kale aynu leenahay ee Canada iyo Europe-na waa kuwan iyo Asia haddii uu qofku doonayo UK oo kale xafiiskan uu la xiriirayaa Hungary-na wuxuu la xiriirayaa xafiiskan EU support oo dhan ayuu isagu qaabilsan yahay European-ka oo dhan ayuu qaabilsan yahay kanina Asia ayuu qaabilsan yahay Taiwan support weeyaan marka intaas waxa weeyaan website-kaagii haddaynu kusoo celino qofku markuu account-kiisa soo galo home-ka ayuu tegayaa marka ugu horeysa waxa uu sameynaya wax weeyaan social media-heen oo dhan ayuu soo taabacayaa app-kan uu la soo degayaa halkaas hadhow toole dashboard-kan wuxuu ka eeganayaa wixii training ah iyo macluumaad oo dhan ayuu kala soconaya marka muhiimadda waxa weeyaan in uu qofku fahmo uun sida loo isticmaalayo bahalkan account-kaaga marka aad soo gashid logout aad odhanaysaa hadhow toolana markaad soo gelisid sign in ayuun baad odhanaysaa intaas ayaynu kusoo koobaynaa videogeenan video ku xiga insha allah waxaanu kaga hadli doonaa qaabka website-kaaga aad u share garayn karto iyo waxyaalahaas oo dhan sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu